tani waxaan ku tilmaami karaa inaan galay mowjadihii caashiqa ee ugu xanuunka badnaay. Isma aana lahayn wax walba sidaan ayay isku beddeli doonaan. Erayada xanafta leh ee i soo gaaray iyo murugada qalbigayga uu dareemay isma aana lahayn way kaa soo gaari doonaan. Ilaa waxaan ahay naf wax jecel. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso jacayl oo aad u xanuun badan, inkastoo aanan jeclayn saaxiibadey inaan u soo gudbiyo, laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay inay wax badan ka bartaan. Qisada waxaa nala soo wadaagay walaalkeen Maxamed oo dareenkiisa dhabtaa cisho waayey markii ay ku dhacday qisadan xanuunka badan. Inta qisada ay socoto waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka ah ku leenahay ee Socdaal 24 iyo aaladeyna TikTok ay ku qoran tahay Socdaal 24. Qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Maxamed hadalkiisu waxa uu ku bilaabay sida tani. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxamed waxa uu dhiganayay mid ka mid ah iskuuladii ku yaala magaalada Muqdisho, asagoo naga codsaday inaan qarino magaca iskuulka inta ay qisada socoto. Maxamed ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo iskuulka dhiganayo waxay indhihiisa qabteen xuuralcayn qurux badan, gabar dhammaan ardayda iskuulkana ay jeclaa lahaayeen mar qura inay la wada hadlaan. Maxamed wuxuu ahaa aamusane afgaaban oo inta badan aana bixin bareega, inta badanna waxa uu joogi jiray galaaska oo xilli walba waxa uu akhri jiray buugaagtiisa. Maxamed gabadha ka dhex baxda ee harsiga iyo hurdada u diida magaceeda waxaa la dhahaa Hani waa gabar xuuralcayn ah oo dhirir badan oo qurux badan, lebiska iyo joogana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay. Hani waxa ay ahayd gabar aqoon-yahanad ah oo ka soo jeeday famil ladan oo Hani baabuur ayaa iskuulka lagu keenaa, baabuur ayaana lagu celiyaa. Bareegeedana waxa ay haysataa lacag ardayda kale aysan haysan. Hani sidaas oo ay tahay ma aysan aadi jirin bareeg oo ayadana waxa ay joogi jirtay galaaska. Mararka qaarna Maxamed ayay si kaftan ah iskala sheekaysi jirtay. Maxamed waxa ay ka tahay mar qura mee Hani kula hadasho oo erayada suugaaneed mee ku dhahdo oo erayo qurux badan mee kugu soo tuurto. Maxamed sidaas oo ay tahayna waxa uu sugayay maalin maalmaha ka mid ah inay imaan doonto maalinka Hani dadka dhan ay ugu soo dhawaa doonto. Hani iyo Maxamed waxay ahaayeen laba arday oo xifaaltan ka dhaxeeyo haddiisan koowaad iyo labaad aysan kala gelin, kaalinta saddexaad haba sheegin. Iskuulka waxa ay ahaayeen kuwo inta badan soo dhaqsado oo waqtiga iskuulka waa ay ilaaliyaan, maadaama ay yihiin laba faras oo mid walba midka kale oo gaadayo. Sidaas waxay muddo ku wada socdeen oo xiriir walaaltinimo oo qurux badan oo socday, inkastoo ardayda qaarna ay ahaayeen waardiyayaal qaas ah. Xogta iskuulka ku jirtana ay ahayd labadan waxaa waaye lama lamaano oo aad isku jecel. Alla dadaan wax ogeyn Allahayu ha cadaabin. maadaama ay sidaas ahayd labadooduna waxay ahaayeen alla kan kala goorma wax sheegi doonaa, oo mid walba wuxuu ahaa bukaan jacayl oo aan waxba soo gudbisa karin. Hani iyo Maxamed siday waxaas ku wada socdaan oo kor laba la iska eego suugaanta la isku tuuro. Maxamed ayaa maalinkii dambe waxa uu fursad helay Hani oo gaarigii soo doonin iskuulkana ku daahday. muddo markay wada sheekaysteen Maxamed ayaana lambarkii Hani u suurta gashay inuu helo, kadibna waxa uu isku dayay inuu xiriirka quruxda badan ee u dhaxeeyo labadooda u sheegto. Hani ayaana waxa uu ka codsaday inuu u sheego xiriir jacayl oo qurux badan, naftiisana oo ka celi waayay.
hani ayaa dhahday muxumo oo waan ku soo dhaweynayaa qof adiga kaa mudan oo aan jeclaa lahay ma jirto waana mudan tahay in lagu jeclaado sababtoo ah waxaa tahay saaxiibkay dhiirigeliyahayga iyo la taliyahayga qaaska ah maxamed markaas inay xaada ka kacday ayuu aad u farxay uu dhoola cadeeyay qolkiisana habeenkaas wuxuu u boodbooday siday inuu aroos oo kale uu yahay labadoodii waxay sidaas ku wada socdeenba oo xiriirka jacaylow quruxda badan oo u dhaxeeyay waxaa la gaaray habeenkii 6 saac habeenimo waxayna ku kala tageen waan ku jeclahay nafteyda ayaa tahay farxadeeda ayaa tahay gacali soo dhawaaw iyo erayo kala suugaaneed ee ka mid ahayd dumarka adigan kaa ishaartay iyo geesigeygii ayaa tahay sidaas ayuuna xiriirkoodii jacayl ee quruxda badan uu ku socday la soco qaybta labaad oo aad u xiiso badan waxayna ku soo dhammaan doontaa ilaa iyo dhamaadka ayaad ogaa doontaa waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah mahad abuukar maxamed mahad socdaal inta qiso noocan oo kale ah ku kulmi doono nabadgelyo